قفك قرابة يا رحم كجوية عقوبة هذا وحو هلا الدنيا ده انتو الآخرة جاري وحو كهلا الميسة أيو كهلا وحو كهلا حاس كيسة وحو كهلا مال كيسة وحو كهلا نفتيسة نبقى كوي معنا يا إلهي وحسيي فقال سؤال لي يا الميه وحرجان ماله إنكار باكون عضي وحي مغليان ماله فرا شوية صلاة متو كدان خير لقميقان باريال معها مركا ويديسيد adiga iyo qaraabadu see isku tihiin wax xiriir ah kama dhaxayaan qaraabadii xuquuqda ku lahayd waa horuba gooyay markaas ilaahay ilmihiisa ka gooyay asaga markaas wuxuu ka arkay cuquubada haysato ku dhacday ilmihiisa ayuu ka arkay mid kala iimaanaya wuxuu leeyahay waa xanuunsanahay hadaa waleysatid waa ilaahay inuu wax siiyay hawa qaraabadii hadaa tiraahdid meel kuma sheego maalkiisa iyo caafimaadkiisa iyo awlaadiisa iyo reerkiisa ayuu ka arkayaa qofka qaraabada gooyaha ogaado dambay ku tahay intaynan geeridu kugu imaanin la xiriir qaraabada oo ihsaan u samee oo ilaahay waxbuu ku siiyay qaraabada xiriiri wax badan ayaa kugu xalismaya oo maanta aad xalin laadahay oo awlaadaada iyo ahalkaaga iyo naftaada iyo ilmahaaga ku saabsan ayaad xalin laadahay ayaa kugu xalismaya قرابة يا رحم كحرير وإلهي وقبض النبي يقول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ذنبك أو ليس المتشره إلهي إن عقوبتي سسودت تشيء الدنيا دا سقى آخرة هذا أكيدنا هيا وحكوس أبسن وحويان قرد الرضا يا الظلمك يا وحويان قرابة أولى جوي